taliga qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cabdullaahi Xiraw iyo 134 askari oo ku tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya tababarka gabagabay magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaaran ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya tababarka oo fududaysay dawladda Ingiriiska waana dareeri muddo 2 bilood jawayba qayb ku ah dadaalada dawladda Ingiriiska ugu gacan siiyay tireedan dhisawka hay'adaha ammaanka dawladda Soomaaliya munaasabada yawayba xiritaanka goobjoog ku hayay mas'uuliyiin ku tirsan maamulka Koonfur Galbeed sida wasiirka amniga warfaafinta tamartiib iyo saraakiil ku dareerta ciidamada xoogga dalka iyo madax ku dareerta midowga Afrika ee AMISOM ciidamada tababarka laanhiri iyo munaasabada waybayo ka bandhigana dowlatus in xirfado dagaalka ee la baray Ingiriiskan fadhi Soomaali yaan ka hambaliyay ciidamada u soo rajaynta tababarkan uu si walbadan ka tara doona dalka your section, your platoon and the company you are in. daacadnimada roog ururtaada ku tirsanta mas'uuliyadda ku tirsanta mas'uuliyadda ku tirsanta. You will fight better in those teams that you have built here and good luck for the future. Maysi rajay mustaqbal wanaagsan team ahaantiina oo antan ku bateen. And now some thank yous. First, taliga qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Cabdullaahi Xiraw oo meel ku hadalaya usuunayba mahadnagan jeediyay madaxdii biyaasi tababarkan isaasoo kale dawladda Ingiriiska sida marwal biyoon garab surin dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada inga geekanian arday ku gala xiritaanka horintii lamaad oo qaybta 6aad oo ku najaxday tababarkii muddada 2 bilood hawadeen iyadaan faraxsan may arday kama hadnaqay saraakiishii iyo madaxda UK suurtageliyay ani arday ciidamadan quruxda badan horteen surun geek ku najaxeen tababarkii casriga iyo siiyaan markii aan haynayada ciidamada hortay surun way nasiib haleena aniyo qaadan tababar casri ah oo waqti gaaban oo 2 bilood ama 8 bilood siyeed week ani arday ka aflaxeen geekana awood in leeyin ani arday cadow kiisho meel kasta insadan waan burburiyaan sidii waqtiyo inta galaan ilaa hadana isku mid aan hayna tan bilaaway sanadkii 2017 dawladda Ingiriiska tababartay in ku badan 900 oo askari oo Soomaaliya haana sayidii tababar shal duban Shukri Ismaaciil Axmed Warsan TV Baydhabo.